ciidamada kooxda Taliban ee gacanta ku haysa dalka Afghanistan ayaa dagaal la galay ciidamada ilaalada xuduudaha wadanka Iran. Faahfaahin kooban ayaa ka soo baxday isku dhaca labada dhinac oo laga soo tawinayo xadka u dhaxeeya labada wadan ee deriska ah. Mas'uuliyiinta kooxda Taliban ayaa sheegay in hal askari looga dilay dagaalka oo dhacay shalay oo Axad ahayd. Labada ciidan ayaa ku dagaalamay meel u dhow xadka ay wadaagaan ee gobolka Nimroz ee dalka Afghanistan iyo gobolka Helmand ee dalka Iran. Labada dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeeyay in uu mas'uul ka ahaa dagaalka. Isku dhacyo badan ayaa dhaxmaray militariga Iran iyo xubnaha kooxda Taliban tan ilaa markii ururka Islaamiga ee hubeysan uu la wareegay xukunka Afghanistan hal sano ka hor. Sababta rasmiga ee keentay dagaalka ilaa ay haatan lama oga. Sarkaal ka tirsan maamulka magaalada Helmand ee gobolka Sistan ee ka tirsan dalka Iran ayaa soo xigtay wakaaladda wararka dalkaasi ayaa sheegay inuusan khasaare soo gaarin dhankooda ciidamada Iran. Wakaaladda kale ee wararka Iran oo lagu magacaabo Tasmin ayaa tabisay in dagaalka uu bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan Taliban ay isku dayeen in calankooda ay ka taagaan meel ahaan dhulka dalka Iran, taasi oo keentay in isla markii ay bilowdaan rasaas ay isweydaarsadaan labada dhinac. Bishii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegtay in hal askari looga dilay dagaal ka dhacay isla aagaasi. Bishii August ee sanadkii 2021 ayay Taliban dib u la wareegtay maamulka dalka Afghanistan kadib markii ay halkaasi ay ka baxeen ciidamada Mareykanka. Wixii ka dambeeyay markaasi kooxdan oo dhistay dowlad Islaami ayaa raadinaysa aqoonsi caalami ah.